بسم الله الرحمن الرحيم. halkan maanta waxaan ku haynaa muuqaal aad u xiiso badan. waa faalo kooban oo ku saabsan Netflix, cida iska leh, aflaanta ay baahiso, xilliga ay bilowday iyo saameynta ballaaran ay ku yeelatay caalamka. fadlan haddii uu ku soo gaaro muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa inaad share tiraahid lana wadaagtid asxaabtaada. muuqaalka like saar. like-tu waxay naga caawinaysaa in muuqaaladeenu ay gaaraan dad badan. waan idin soo dhaweynaynaa, mar walba naga mid ahaada, soo dhawaada. si aad nooga mid noqotid fadlan rukumo oo gambaleelkana furo. Netflix waa shabakad muuqbaahiye ah oo laga daawado aflaanta, dukumiintiyada iyo waxyaabaha la midka ah. Reed Hastings iyo Mark Randolph oo ah laba nin oo Amerikaan ah ayaa dhagax dhigay shabakadan August 29keedii 1997. xarunta guud ama madaxafiiseedka laga maamulo Netflix waxay ku taalaa Los Gatos, California. Netflix oo ah application-ka ugu badan oo ay maanta isticmaalaan dhalinyarta Soomaaliyeed waa mid bulshaweynta caalamka wax badan ka bedelay hab nololeedkooda maalinlaha. sida iska cad, 3 qof oo meel joogto, 2 ka mid ah ayaa isticmaalo abkan. waxaa xusid mudan inay jiraan shabakado badan oo aflaanta sameeya, maalgeliya, kadibna baahiya, sida HBO, Showtime, Networks, Fox, Stars, Disney, Amazon Prime Video iyo Hulu oo isugu jira kuwa online ah iyo kuwa channels ah. laakiin ma jirto mid sida ay Netflix wax u baahiso u baahiya ama loogu xidhan yahay. 187.8 milyan oo subscribers ayaa ku xiran Netflix. 74 milyan oo ka mid ah waxaa laga isticmaalaa gudaha Mareykanka. sanadii 2016 waxay Netflix baahinteeda online-ka ah gaadhay 190 wadan oo ka mid ah caalamka. Netflix waxyaabaha ay kaga fiican tahay shabakadaha kale waxaa ka mid ah waxaa adeegeedu u gaadhsiisan yahay dhammaan daafaha dunida marka laga tago qaybo ka mid ah dhulweynaha China, North Korea, Crime iyo Syria oo dowladda Mareykanku shirkadaheeda ka ganaxday sababa gaar ah. filimkii ugu horeeyay ee original ahaan ay iska leedahay Netflix waa taxanaha House of the Cards oo soo baxay 2013. wixii ka horeeyay waxay baahin jirtay aflaam aynan lahayn iyo kuwa ay gacan ka geysatay. laga soo bilaabo 2013 ilaa 2020 waxay Netflix samaysay in ka badan 1500 oo filim oo original ahaan ay iyadu leedahay. waxaa ka mid ah aflaamta ugu caansan oo ay samaysay taxanayaasha ay ka mid yihiin Narcos, Stranger Things iyo The Crown. xilligan la joogo Netflix waa shirkad weyn dhaqaale ahaan. hantida ay ku fadhido waxaa lagu qiyaasaa 125 bilyan ee lacagta dollarka. waxay kor u dhaaftay dhammaan shirkadaha la tartamo. halkaasi waxaa noogu soo gabagaboobay muuqaalkeenii aadka u xiisaha badnaa. fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir. waxaa farxad inoo ah inaad naga mid noqotid.